ergey gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Wan ayaa kulan fogaan arag ah kaga qayb galay aalada Zoom-ka ah ayaa sheegay in qaramada midoobay ay rabtay nooca doorasho kan ka duwan midka lagu heshiiyay Minister Swan ayaa niyad ka muujiyay in rabitaanka qaramada midoobay ay meesha ka baxday waxa uu sheegay in qaramada midoobay saaxiibada caalamka ay u ololeynayaan doorasho qof iyo cod ah sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyay ee madaxda Soomaalida ku yeesheen Dhuusamareeb iyo Muqdisho lagu saxiixay heshiis ku saabsan doorasho iyo nooca ay tahay 2020-2021 ugu dambeyntii waxa uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in la xushmay doono meelaha laga toosiyay nidaamka doorasho ee lagu heshiiyay oo ay ka mid tahay qoondada haweenka 30% ee ku metela baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo qaabka loo sameey doono habraac soo xulista oo noqon doonta mid loo dhan yahay. Audio Jungle.